halkaad inaga daawanaysaan waa saxafi films oo alaabaad ka dhigaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi India u dhashay. Taawada barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa Guur oo amarwada u dhaxda Shahrukhan oo kamid ah aktarada shirkadda Bollywood-ka kuwada ugu magac dheer King of Bollywood waa boqorkii Bollywood-ka. Guurka Guur iyo Shahrukhan wax shuruuda ma u dhaxeeyay. Shahrukhan wax shuruuda ma ku xiray Guur se wax shuruuda ma ku xirtay saygeeda Shahrukhan. haddaba Guur markay ay guursanaysay xidigan caan bahay ee King of Bollywood shuruudeeda ugu adkayd waxay ahayd arrimo ku saabsan haddii ay ubadiso dhalaan maxay tahay diinta ay qaadan doonaan. haddaba arrintaasi waxay ahayd arrin aasaasi ah loogana baahan yahay aabba kasta inuu ka fikiro ubadkiisa diinta ay qaadanayaan. sida la wada ogsoon yahay Shahrukhan waxa uu haystaa diinta islaamka sida uu isagaba qirtay. ha yeeshee marar badan oo saxaafadda ay su'aalo ka weydiisay ubadkiisa diinta ay haystaan waxyaabihii uu ku jawaabay ma ahayn waxyaabo uu qofka muslimka ku qanci karo. haddaba aktarkan ayaa waxa uu sheegay in caruurtiisa ay labada diinba ku dhaqmaan marna ay tagaan meesha ay sanabyada ku caabudaan maadaama Guur ay tahay qof hinduuya oo sanabyada caabuda marna ay isaga masaajidka u raacaan. waxa uu yiri arrintaasi ma ahan arrin muran ka taagan yahay caruurteeda labada diimood ayay haystaan buu yiri aniga xaaskaygana heshiis ayaan ku galnay buu yiri in caruurteena ay diinta ay rabaan iyaga ay qaataan ee aan mid gaar aan lagu khasbi karin. haddaba arrintan waxaa lagu tilmaamaa Shahrukhan inuu markii ay noqoto dhanka diinta islaamka uu ubadkiisa ku tacadiyay amaba tarbiyadii looga baahnaa uusan ka soo bixin. markaa dhinaca kale ka fiirisidna waxaa lagu tilmaamaa Shahrukhan haddii uusan ka yeeli lahayn Guur arrintaasi ayada ah in aysan marnaba marwadiisa noqoteen haddii xitaa markii uu guursada kadib ay muran badan ka keeni lahayd waxa ay dad badani saadaaliyeen in uu ogolaan lahaa heshiisna ku qaadan lahaa in caruurta marna ay tagaan masjidka marna ay tagaan goobta sanabyada lagu caabudo. waxa uu sheegay caruurtiisa inay labada diinba haystaan oo ay ku faraxsan yihiin isaguse uusan arrintaasi markii si hoose loo sii weydiiyey uusan wax jawaaba ka bixin maxay tahay adiga oo aabba muslima in caruurtaadu ay tagaan goobaha sanabyada lagu caabudo. haddaba daawadayaal shuruudihii dhex maray Shahrukhan iyo marwadiisa Guur ee ahaa in caruurtaasi ay qaataan labada diinood waa diinta iyada ay haysato iyo tuu asaga haysto ayay ahayd waana ay ku heshiiyeen. haatanna waxay ku yihiin laba lamaane oo nolosha wadaaga wax muranna ma soo dhexgelin kaliya iyada oo mar qura ka shakisay atirishada caan baxday ee Priyanka Chopra waqti ay filimo badan wada daadiyeen iyada iyo Shahrukhan masayr dhanka Guur ka yimidna looga hakiyay inuu filim dambe dib ula jilo Priyanka Chopra. taawada barnaamijka kaga hadlaynay Shahrukhan iyo marwadiisa Guur intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijkan waxa uu qayb ka yahay barnaamijka taxana ka noqon doona saxafi films oo aynu kaga hadli doono lamaanayaasha shirkadda Bollywood-ka iyo shuruudaha dhex yaala inta aysan isguursan ka hor iyo qodobada ay soo bandhigeen. taawada barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. barnaamijka waxaa idiin daatiinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax halkaad ka daawanayseena waa saxafi films si aad ugu rukumataan barnaamijyada ka baxa saxafi films subscribe kadibna gambaleelka riixsi barnaamijka markuu hawada soo galaba si toos ah uu kugu soo dhaco inagoo isku duuban oo aabbaada saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.